السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي وإذن سلامي مeel kasta joogtaan dhammaantiin kusoo dhawaada channelkeena Somali Food Academy maanta waxaan rabaa inaan kariyo wax yar oo macmacaan ah waa catriyad ama tambi iyo caano la isku karinayo decoration yarna waan saaray insha Allah haddana waxaan rabaa inaad ila aragtaan sidii aan u kariyay daawasho wacan dabka waxaan ku diyaarsaday oon saartay digsi waxaan ku darayaa hal qaado weyn oo subag ah waa subageena caadiga butter waad isticmaali kartaa ama olive subagii waa ii dhalaalay waxaan hadda rabaa inaan ku shubo catriyadu laba u kala baxdaa waa mid cadcad oo aan la soo dubin oo ay ka rabto inaad dubtid iyo midaan waa u jeedaan midaan waxa waaye way duban tahay roasted waaye waa la soo dubay marka catriyada hadda waan ku shubay dabka waan walaaqayaa dab badan ma rabto sida midda kale wax yar bay rabtaa dabka zaid uma rabto way ka dhuudhuuban tahay catriyada kale wayna ka jilicsan tahay taas dab badan meesha ay ka rabtay tan wax yar ayay u baahan tahay waxaan ku darayaa hadeertaan caano waaye caanaha hal mar kuma wada daraayi waxaan rabaa marka hore xoogaa ayaan ku darayaa xoogaagan hadda aad u jeedaan markaan ku daro waan walaaqayaa inaan arkaan rabaa catriyada se u kala baxbaxday ma rabin in iskaga kay dhigto waa u jeedaan caanihi ayada markay is dhex galeen intii ii harsanayd caanaha aan hadda ku darayaa marka caanaha ma badna waad u jeedaan catriyada iyo caanaha waxa waaye wax yar ayay kala koreeyaan ma badna catriyadii caanihii way isla soo koreen waa u jeedaan inay karaan bay bilaabeen catriyadan soft way saa idinku sheegay midda kale oo loo kariyo sida aroosyada ama xalfadaha laga karsado oo briska dhinaca laga dhigto oo macaan way ka jilicsan tahay midaan way ka softisan tahay way ii karooyaan haddana waxaan ku darayaa heel shiidan qaadada haafkeed oo ah heel shiidan vanilla iyo waxaas ma isticmaalay heelka ayaan isticmaalayaa heelkan rabaa catriyadii iyo caanihii baan heelka ku darsaday waxaan kaloon ku darayaa sokor waaye qof walba macaanka asaga qiyaastuu rabo adaa rabtid sokorta waad ka badsan kartaa adaa rabtidna waad ka yaraysan kartaa adiga ayay kugu xiran tahay macaanka qiyaasta aad rabtid intaasaan isku walaaqayaa hadda waxaan kaloo rabaa inaan ku daro waa cornflour waranga waaye warangada hal qaado oo waranga aan biyo kusoo qasay dabkan waa u gaabiyo cuntadii waa u jeedaan hadda warangadii aan ku shubay catriyadii caanihii warangadu waa hal qaado wax yar oo biyana waan kusoo qasay haddaan hal qaado ka badiyo warangada waxay noqonaysaa dhufaag ayay noqonaysaa catriyadii marka waan u gaabiyay dabka hadda waan ku darayaa laakiin dabka inay hal mar si fiican iskula soo kartaan rabaa waxaan u gaabiyay warangada darteed markii warangada lagu daraayo waa la gaabiyaa dabka haddii kale way ka burtuqoobe hadda waxaan ku darayaa oo halkan aan kusoo jajabsaday oon kusoo tumay qaarna ay xoogaa kuuskuus ah qaarna ay budo tahay inta hoose waad ka dareemi kartaan waa lowskaas ayaan soo tumay markaan tumay oon soo jajabiyay waan ku daray saan ayay isku noqdeen everything waa isdhex galeen lowskii sokortii heelkii catriyadii caanihii maasha Allah caraftana lagama sheekeyn karo subag baa ku jira hadee meel fog bay kasoo carfaysaa haddana waan ka daminayaa dabka waa diyaar waxaan bilaabayaa saan u saaf garayn lahaa waatana weelkan ayaan kusoo shubay hala iga raali noqdo sharaxaadaas markaan saarayo waan ka gaari waayay waqtiga ayaa ii saamixi waayay next time insha Allah ayaan idin tusayaa sida aan u sameeyay waxa korka aan ka saarayna waa qorfo shiidan markii aad ku shubtaan weelkii aad ku saaf gareyn lahaydeen wax yar fridge-ka gali qabowga ayay ku macaan tahay haddana waxaan rabaa inaan idin tuso sida ay ku soo baxday biyo ma ahan adeegna ma ahan wax culus waa wax yar oo soft ah oo maasha Allah ah waxaan filayaa inaad ka wada hesheen meel kasta joogtaan kusoo dhawaada channelka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh